warbixinada kala duwan ee soomaaliya sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyey ee halkaasi ka dhacaya ayaynu isla qiimeyn doonaa. madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo xafiiskiisa kula kulmay qaar ka mid a wasiiradii la magacaabay. sidoo kale waxaanu isla eegi doonaa wasiirkii u horreeyey oo iscasilay wasiir ku-xigeenka qorsheynta qaran ee soomaaliya maxamed cabdulqaadir cali ayaa iska casilay xilkaasi. waxauu kasoo jeedaa puntland. bal faahfaahin ayaanu kaga helnaa qodobkaasi. qodobo kalena waanu soo gudbin doonaa. midii laba ayaynu ka eegi doonaa haddii ay buun raalli ka noqdo. waxaanu ku horeyn doonaa golaha wasiirada cusub ee markaasi dowladdaasi ra-iisul wasaare xamse bare oo shalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo kulan soo dhoweyn la qaatay xubnaha magacaaban ee golaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo ugu helinayo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa ugu hambeliyey xilaalka loo magacaabay. madaxweynaha ayaa ku boogaadiyey ra-iisul wasaaraha la tashiyada ballaaran ee uu sameeyey dadaalka uu ku bixiyey dhismaha xukuumad taya leh oo hanan karta himilada shacabka soomaaliyeed oo ay ka qabaan dowladooda iyo fulinta higsiga ku aadan soomaali heshiisa dunida heshiislaha. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa kula dardaarmay golaha xukuumadda in ay xoogga saarto xaqiijinta amniga, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiinta, dhammaystirka dib u eegista dastuurka, horumarinta dowladnimada iyo kaabayaasha nololeed ee shacabka soomaaliyeed. sidoo kalena ay hagaajiso xiriirka diblomaasiyadeed ee soomaaliya ay la leedahay dunida. madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliyeed ayaa ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya inay ansixiyaan xukuumadda si ay markaasi deg deg ah ay u gutaan waajibaadka qaran ee loo igmaday. waxaanu alle uga bariyey inuu waafajiyo wixii dan u ah shacabka iyo dowladnimada soomaaliya. isla madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ku boogaadiyey ra-iisul wasaare xamse la tashiyada kala duwan ee uu sameeyey dadaalka uu ku bixiyay dhismihiisa. madaxweynaha ayaa waxa uu sidoo kale ka codsaday xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya inay ansixiyaan xukuumadda isla markaana ay sida ugu dhaqsiyaha badan kusoo gebagabeeyaan howshaasi. isla wararka ku saabsan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi bare wasiir ku-xigeenka qorsheynta soomaaliya maxamed cabdulqaadir cali ayaa iska casilay xilkaasi. waxa uu kasoo jeedaa puntland. maxamed ayaa ka mid ah xoghaynada gudoomiye ku-xigeenada koowaad ee golaha shacabka waxaana uu sheegay in beeshiisa aysan u qalmin xilkaasi oo ah mid aada u hooseeya sida uu isagu markaasi arrinkaasi ka dhawaajiyey. haddaba ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 6 iyo markaasi 20 wasiir ku-xigeenadooda iyo wasiir dowlayaal. xubnaha wasiirada la magacaabay ayaa waxaa isugu jiraan wasiiro hore, kuwo cusub iyo kuwo saaxiib dhowle ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. haddaba magacyadooda waad la socoteen inta badan wasiiradaasi la magacaabay. xogo kala duwan oo arrinkan ku aadan ayaan sii eegeynay. isla madaxweynaha soomaaliya kulankaasi soo dhoweynta uu la qaatay xubnaha magacaaban ee golaha xukuumadda federaalk soomaaliya oo uu helinayo ra-iisul wasaare xamse cabdi bare. madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu kula dardaarmay golaha xukuumadda inay xoogga saarto xaqiijinta amniga, gurmadka abaaraha, dib u heshiisiinta, dib u eegista iyo sare u qaadida horumarka dowladnimada iyo kaabayaasha nololeed ee markaasi xukuumaddaasi. dhanka kalena isla warbixinada kale haddii aanu sii eegno waxaa golaha wasiirada xukuumadda federaalk kasoo dhex muuqday xogayihii guud ee ururka mideeye abshir cumar haruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda. war ka soo baxay xafiiska mideeye ayaa sidan loo dhigay. urur siyaasadeedka mideeye waxa uu hambaliyo bogaadin u darayaa dhammaan golaha wasiirada cusub ee xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. si gaara waxa uu ururka mideeye hambaliyo ugu dirayaa xogayihii guud ee ururkaasi mudane abshir cumar huruuse oo loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga jamhuuriyadda federaalk soomaaliya. ururka mideeye waxa uu alle uga baryay inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus iyo xilka ummadda soomaaliyeed uu markaasi qabtay. allaha ku aasturo wasiirka cusub xilka iyo mas-uuliyadda wasaaradda arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga mudane abshir cumar haruuse. mar labaad waxaanu ku leenahay buu leeyahay hambalyo. ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa waxa uu soo magacaabay golihiisa wasiirada cusub kuwaasi oo ku dhawaaqistooda si weyn loo sugaya maalmahan. waxaa jira dhaliilo loo jeedinayo xukuumadda cusub ee xamse cabdi bare. xamse cabdi bare ayaa soo magacaabay wasiiro ku-xigeenadooda wasiir dowlayaal waxaana markaasi mar uu ka hadlayay munaasabadda ku dhawaaqista uu ku shaacinayay in magacaabistiisa ku aadan golaha wasiirada ay ku timid wadatashiyo badan oo uu la sameeyey qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed. balse durba waxaa soo baxaya eedeyn iyo dhaliilo culus oo loo jeedinayo hanaanka magacaabista xukuumadda xamse. tan iyo markii shalay markaasi galab lagu dhawaaqay golaha wasiirada waxaa soo baxayay dhaliilo ay jeedinayeen siyaasiyiin iyo shakhsiyaad kale oo dalka horey markaasi xilal uga qabtay
kuwaasoo durbaba dhaliilay hanaanka magacaabista uu sameeyey xamse cabdi barre. eedaha ugu culus ee dadka dhaliilsan xukuumadda ayaa cuskanaya intooda badan ay cuskanayaan ayaa ah qaabka awood qaybsiga, iyadoo ay xusud mudan tahay in isla shalay uu mid ka mid a xubnihii lasoo magacaabay iscasilay kadib markii uu sheegay in awood qaybsi ahaan uusan xilkaasi ugu qalmin. si walba ahaatee xukuumadda cusub ee xamse barre ayaa waxaa kasoo muuqday shakhsiyaad saameyn ku leh siyaasadda soomaaliya oo horey ugu jiray markaasi iyo shakhsiyaad kale oo dowladda ku cusba. waxaa si weyn saameyn u yeeshay magacaabidda mukhtaar roobow. ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada ee muddada la sugaya. golaha cusub oo ugu magacdaray dan qaran waxa ay ka kooban tahay 25 wasaaradood, halka xukuumaddii ka horreysay ahayd 26. waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah mukhtaar roobow oo horey u ahaa hogaamiye ku-xigeenka al-shabaab muddo 4 sano. waxa uu xidhnaa dowladda. siyaabaha loogu magacaabay wasaaradda diinta ee waqaafta ayaa ka dhalatay falcelin aada u kala duwan. wasaaradaha qaar ayaa la baabiyey, mid kalena waa la abuuray. waxaa meesha laga saaray wasaaraddii gargaarka iyo musiibooyinka malaha, maadaama madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo horey u magacaabay cabdiraxmaan cabdishakuur ergeyga gaarka ee arrimaha abaaraha iyo sidoo kale gargaarka bini'aadanimada. wasaaraddaasi kuma aysan xusneen xukuumaddiisa. sidoo kale waxaa meesha laga saaray wasaaradda dastuurka oo horey gooni ugu taagneed, waxaana hadda la raaciyey wasaaradda cadaaladda oo noqonaysa wasaaradda cadaaladda dastuurka dalka, waxaana loo magacaabay xasan macalin. labadan wasaarad meesha laga saaray ayaa tirada wasaaradaha ka dhigi lahaa 24, balse waxaa lasoo kordhiyey wasaarad cusub oo waa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada. axmed macalin fiqi ayaa laga dhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha, halka dr maxamed sheekh cali doodiishe markaasi loo dhiibay wasaaradda amniga. si gaara marka la fiiriyo xukuumadda cusub lagu dhawaaqay waxaa ka saameyn badnaatay wasiiradii kale ee la magacaabay, gaar ahaana wasaaradda arrimaha diinta ee waqaafta abu mansuur roobow cali oo al-shabaab isagoo asaasayaasheedii ka mid ahaa, islamarkaana shalay xil loo dhiibay. warbaahinta caalamkana intooda badan si iskuumida ciwaanadooda ay u dhigayeen. sida xogta aynu ku helnay, xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa diyaarinaya mooshin ka dhan ah xukuumadda cusub ee magacaaban, taasi oo hortegaysa golaha shacabka. xildhibaanadan oo u badan kuwo kasoo jeedo koonfur galbeed iyo galmudug ayaa diidi doonaa golaha wasiirada cusub ee lasoo magacaabay shalay, iyagoo sheegay in dad gaar lagu qanciyey xilalka xukuumadda lasoo dhisay. mooshinkan ayaa waxaa la ogeyn in ay ka gudbi doonto xukuumadda oo ay codka kalsoonida heli doonto, mise waxa ay qaadi doontaa xukuumadihii hore wadadii ay mareen qeybtoodii oo la diiday kalsoonidana lagu hor istaagay. gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka sacdiye samatar ayaa la sheegay in xildhibaano ay horboodeyso ay qeyb ka yihiin mooshinka xilli gudoomiye aadan madoobe oo xubno markaasi ku yeeshay xukuumadda cusub, isaguna codka kalsoonida raadinta ku mashquulsan yahay. warar hoose oo warbaahinta ay ogaatay ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu codsaday in uu la kulmo xildhibaanada golaha shacabka ka hor intaan xukuumadda la horgeen si ay kalsoonida ugu qaadaan. 18 sano ka hor, sanadkii 2014 xukuumaddii kumeel gaarka ahayd waa sanadii 2004 raalli ahada xukuumaddii kumeel gaarka ahayd ee ra-iisul wasaare cali maxamed geedi ayaa loo diiday codka kalsoonida xilli baarlamaankii soomaaliya ee fadhigeedu ahaa nairobi ay hor istaageen.